munaasabadani oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen saddexda mas'uul ee ugu sareysa dalka xubno ka tirsan labada gole ee dawladda qaybaha bulshada barbaarta gaashaaman isla markaana lagu furayay xarunta cusub ee wasaaradda gaadiidka cirka dhulka badda iyo dekedaha ee xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay dayactir lagu sameeyay ayaa waxa ay ka dhacday xarunta wasaaraddaasi khudbado kala duwan oo la xiriira waxqabadka wasaaradda gaadiidka ayaa goobta munaasabadu ay ka dhaceysay waxa ka soo jeediyay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay maxamed cismaan cali dhagaxtuur oo ah agaasimaha wasaaradda gaadiidka cirka dhulka badda iyo dekedaha oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta wasaaradda ay dadaal dheer ah u galeen sidii dib loogu dayactiri lahaa xarunta wasaaraddaasi ee ku taala degmada Shangaani ee gobolka Banaadir wasaaraddan waxay tahay xaruntii dhexe wasaaradda 20 sano kadib burburkii dalka ka dhacay wasaaradii uu saameeyay ay ugu weynay xaaladda ay ku sugnayd iyo xaaladda ay hadda ku sugan tahana sharaxaadeeda xubnaha kale wasiirada ayaa bixin doona 20 sano kadib shuruucdii dalka oo ay wasaaraddan u xil saartay sida astaamaynta gaadiidka iyo ogolaanshaha wadayaasha gaadiidka wasaaradda waa ku guuleysatay sharaxaadeedana waxaan u deenaynaa xubnaha kale wasiirada habka maritaanka wadooyinka iyo tabeelayaasha wadooyinka la suro guul ayay ka gaartay wasaaraddu madaxweynaha dawladda Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo goobtaasi isna hadal kooban ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya wasaaradda gaadiidka ay ku howlgalayso xaruntii hore ee imika la dayactiray xarunta wasaaradda gaadiidka cirka dhulka iyo badda iyo dekedaha ayaa waxaa muddo 20 sano ay ahayd mid burbursan iyadoona mas'uuliyiinta wasaaraddaasi ay sheegeen inay si cad uga jawaabeen baaqi madaxweyne Shariif ee ku aadanaa in wasaaradaha ay dayactir ku sameeyaan xarumahooda isla markaana ay ku howlgalaan